والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، waxaa dariskeenu ku saabsan yahay siiradii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wax ka mid ah. nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ah acdamu insaanin mara fi taariikh, qofka bini aadamkaa ee ugu weyn ee taariikhda reer nebi aadam oo dhan soo maray soona mari doona. oo uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo xadiidka ka asaxay ku leeyahay ana sayidu waladu aadam, anaa sayidu ah intuu aadam dhalay, walaa fakhr, faanna kuma jiro. waynu leenahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa hogaamiyihii ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala. waa mar labaad ee taariikhda bini aadamka ee la hayo qiimaynteeda, xataa marka lagu qiimeeyo waxyaabaha bini aadamku wax ku qiimeeyo aan loo eegin rasuul iyo nebinimadaba, haddana la leeyahy waa acdamu insaanin fi taariikh. sidaa awgeed buu ninkii maraykan ee Marshall Head buuggiisii uu ku tilmaamayay boqolkii qof ee taariikhda ugu influentialka badnaa ama ugu raadka badnaa, wuxuu ku tilmaamay kow nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, isagu isticmaalayay maqaayiis bashariya ama miisaan bini aadamiya. sidaa awgeed taariikhda la hayo qofkii bini aadamka ahaa ee ugu weynaa in saacad ama 2 saac ama wax la mida lagaga warramaa runtii waa wax baciida, waa wax durugsan. hase yeeshee waxaynu isku dayi doonnaa inaynu tilmaamo yaroo kooban ka tilmaamno, maadaama aanay marnaba suurtagal ahayn inaynu kaga warrami karno wakhtiga intaa leeg. waayo kan rasuul wuxuu ahaa rasuul ku guulaystay wixii loo soo diray, wuxuu ahaa madax dowladeed, madaxweyne ku guulaystay dowladdii uu madaxda ka ahaa, oo muddo yar oo 50 sanaba ka yar ay dunida inteeda badan ku qabsatay. wuxuu ahaa ka qaa'id caskari, hogaamiye dagaal mid ah oo ku guulaystay hogaamintiisii dagaaleed. wuxuu ahaa qaadi ummad kala xukumo oo kala saaro cadaalad ku xukuma, mid ku guulaystay. wuxuu ahaa imaam iyo weli ilaahay oo wax caabuda, oo alle subxaana wa tacaala cibaadadiisa kii dadka tusaale ugu ahaa. wuxuu ahaa aabbo haween xaasasa iyo guryo leh oo ku guulaystay maamul guriyeed. wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nolosha in every aspect, qayb kasta oo nolosha ka mida qof ku guulaystay. sidaa awgeed bay cidhiidhi noqon doontaa inaynu isku dayno hal muxaadaro inaynu kaga warranno, laakiin biidni illaahi tacaala waxaynu isku dayi doonnaa inaynu muqhtatafaad kooban oo macaalimtii loo xadiday dariska kan ka mida aynu tilmaamno, oo ku saabsan dhalashadiisii, mardaaciddii naas nuujisay, meeshuu ku koray, qaabku u koray, haweenkuu guursaday, iyo waxoogaa ka mida maraaxilu dacwati.
وقهرين إلهي سبحانه وتعالى وحلي وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار إلهي سبحانه وتعالى وحو أبورا وحو دونه استغانا الدور شضله ولذلك النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلهي با أبوري دورتينه الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي سبحانه وتعالى إسقى أياؤك حيث يجعل رسالته ماشي ودغي الرسالة ديسا أما عده الرسول الدورانيه مواصفات كإلهي يوحق الدورانيه إلهي سبحانه وتعالى إسقى يقانا ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه وحقت المام يا حديث كبخاري كسغن إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم نبي صلوات الله وسلامه عليه وحليه إلهي قبيلك كنانة الله يدهدا يكدر نبي إسماعيل انتو دلي كنانة قريش بكسي دورتي انت قريش ككوبنا انت كنانة ككوبنا ان قريش بقى لك كسي دورتي قريشنا رير بني هاشم بقى لك كسي دورتي رير بني هاشمنا انو ايقا دورتي بو نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه اذن تفيرتي سيعد كتر سنان هي قبيل كيس الهي باو دوري سبحانه وتعالى زمن كأي ماشى وكصاب حينا إلهي باو دوري سيدا حديث كي بخاري ولي بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه إلهي سبحانه وتعالى قرونتي غير نبي آدم وصامر كلا قد سنيدا أزمنة دا هينا هل كي يوغو زمن كي يوغو في عناب الله سبحانه وتعالى كدورتي إذن وحا هذو نصب سيدا حديث كي كلام بخارية هراقل مركو وريسانا يا أبو سفيان وتلمامي وحوها مد غير كود الله دورتي إساقنا لغا سيدح دورتي وحوها مد زمن كيس الله دورتي زمن كي وشوغينا وقت يدك لا إلهي وكد دورتي سبحانه وتعالى وحوها ماشو كل شيء كصوبحي مد دورتي ومكة وإلهي بلد كيس ماشو وشعلي صح حديثك لنبي كسوغان صلوات الله وسلامه عليه سيدنا وضع نقانه مقعيسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى رنشر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن النزار ابن معد ابن عدنان انت ابترسين تا عن شيغي اهل التاريخ ويسكوا فقصي عدنان يا اسماعيل انه من ولد اسماعيل هانا عيدي كما مرنصنا انت ورد حيث تاريخي هندو ورك لقد سنبيت المامان اسماعيلين وين ابراهيم هانا ولا يقانا ابراهيم يا ادم انت ورد حيثنا تاريخي هندو وحيابك لقد سنبيت المامان اذن إلا يقبلك عدنان لا يراهضه عرباد إنه كأبتر صده عدنانين ولد إسماعيل كمد يينا والله با أو كأبتر صده نبي إسماعيل وإن إبراهيم وحي كدم بينا إبراهيم إنه سو سعد آدم قال والله با لكن لما ضاع ينود انت كان حيث تاريخي هندو مسوغان يعني سعد الله قرن ماي وأنه غير عدنانها دبتنا قريش كمدها قريش يا لورن شري تاريخي هذا بروح يدهدان النضر ابن كنانة ده تنقبيل كتر سنة النضر لا يدهده أي قريش لورن شري تاريخي هذا قارنا واحد هذان مايا إن النضر ما هو إنهم كووها أو فهر ابن مالك ابن النضر وفهر كبيلين كأه قريش كدنبان يوبدين تاريخي هذا قريشين فهر كيه نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أبترسين تيسا الله يقارنا لقرنا يواطاه هو يدينه إيانوا
وقريش، وآمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن الزهرة ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب، لؤي ابن غالب كصوغ شايرة، وكلاب ابن مرة ابن لؤي ابن الغالب. أيديس حتى كسه رئيسا وبر بنت عبد العزى ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي، لما أنتو مع أيوينكي وقريش أيديس المركة له كاسوا النبي صلوات الله وسلامه عليه مقعسي أبترسينتي سيوحي لقهي قرطة ودشي نبي صلوات الله وسلامه عليه waxa waxyigu sugaya inay isniin ahayd oo nabigu salawaatu ullaahi wa salaamu alayhi xadiista ka asaxday wuxuu ku tilmaamayaa inuu isniin dhashay. waxaana ibnu qayim uu leeyahay waxay isku wada waafaqsan yihiin nimanka taariikhda qoraa inuu maka gudaheeda ku dhashay sanadka caamul fiilka la yidhaahdana inuu dhashay. taariikhdii hore carbeed waxay la mid tahay taariikh kastoo dad umiyana wax qorin, waa sida taariikhaha Soomaaliyeed oo kale. gugii waxaasi dhacay, dayrtii waxaasi dhacday, gugii saa la noqday, waagii barwaaqada ahaa, dayrtii hebel la dilay, waxyaabahay Soomaalidu taariikhda ku tirsan jirtay oo kale, abaaraha iyo guyaasha iyo wixii la mid ah dhacdooyinka. inkastoo taariikhda bini aadamku sideedaba dee dhacdo uu lagu tiriyo dhacdooyinka ka mid ah, xataa tan miilaadiga aynu hayna dee miilaadu ciisa bay leeyihiin baa laga bilaabay dhacda lagu tiriyey. laakiin taariikhdan carbeed inta la garanayo waxa ay ku tilmaamaan dhacdadii caanka carabka ahayd ee ahaa caamul fiilk, sanadkii loo yaqaanay inuu nebigu dhashay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, sanadkii maroodiga. alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil, sanadka maroodiguna waa ka alla qur-aanka kaga warramayo. asxaabulfiilka waa sanad aynu naqaano in niman xabashii kacbada ay ku soo weerareen maroodiyaal, saa taariikhdu dhigto. taariikhda kale bini aadamka iminka la tiriyo sanadkaasi xaguu ku beegnaa, qaar waxay dhahaan 570, qaarna 571kiibuu ku beegnaa. bishuu dhashay teebay ahayd taariikhyahanadu waxay sheegaan inay ahayd rabiic alawal. rabiic alawal isniintaasi xaggay kaga dhacaysay uu nebigu dhashay? aqwaal baa la soo arooriyaa, bisha labadeeda sideedda aqwaal baa la soo arooriyaa. uu ugu mashhuursan yahay ama se ugu caansan yahay qowlka sheegaya 12kii rabiic alawal inay ahayd, laakiin bidabt maaha masaa'il isku waafaqsan yahay kuwaasoo dhamme, waa masaa'il culamaa'i taariikh آراء kala gadisan ay ka tilmaamaan. laakiin sida mashhuurka sida caan baxday waa inuu 12kii rabiic alawal dhashay. taariikhda miilaadiga abril sida wadaadkii maxmuud baasha alfalaki uu ku tilmaamayo abril 571kii abril xaggee uu ka dhashay, isagoo abril 20keeda 22 meelahaasoo tilmaamaya. rag kalena maalmo kale tilmaamayaan, waayo isagoo abril 20keeda iyo 22deeda waxuu ku salaynayaa isniin 9kii rabiic alawal ku dhacaysa sida uu isagu sheeganayo. calaa kulli xaal nebigu inuu isniin dhashay iyada waa la hubaa. inay ahayd caamul fiilla taariikhyahanadu waa isku waafaqsan yihiin. intaa wixii ka dambeeya waa masaa'il culamaa'i taariikh siyaabo kala gedisan ay u tilmaamaan. markii uu dhashay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yaa naas nuujiyey. ثويبة gabadhii la odhan jiray ee mawlaadka u ahayd uu abilahab uu lahaa ayaa naas nuujisay. waana ka nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka bukhaari ku tilmaamaya inay thuwaybi naas nuujisay. ardacatnii wa aba salama thuwayba buu nebigu yidhi, aniga iyo aba salama saxaabigii la odhan jirayba waxaana naas nuujisay buu nebigu yidhi thuwayba. ثويبي waxay kaloo naas nuujisay Hamza ibn Abd al-Muttalib oo nabiga adeerkiiya, oo ka xadiiska kale Bukhari nabigu ku tilmaamay markii la yiri inantiisa guurso la tahillu li ima banana wa yahrum min ar-rida'a ma yahrum min an-nasab hiya ibnatu akhi fi ar-rida'a bu nabigu leey. nasabka waxa ku mamnuuca yaan dumarka nasab lagu guursan karin
ayaan iyagana lagu guursan karin buu nebigu yidhi haddaa naas wada nuugteen waana inantii ninkii aanu naaska wada nuugnay ee adeerkay xamse markaa walaal buu kula ahaa naas nuuga nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inay markaa huwayba naas nuujisay waa laisku wada waafaqsan yahay culamaa'i taariikh waxay kaloo tilmaamaan xaliima sacdiya gabadh la odhan jiray oo sacdiyada iyana inay naas nuujisay muddana baadiyaha ay ku haysay 4 sano meelaha ku dhadhow oo halkaasi ku soo koray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh asmaa badan baa u soo arooray magacyo badan inuu leeyay magacyada qaar waa sifaat nebiyada kalena la wadaagaan isaguna uu ugu sii fiican yahay kamaalku sifooyinka ka leeyay qaarna waa asmaa isaga ku gaara sida xadiidkii saxiixaynka ku yaallay uu nebigu lahaa lii 5 asmaa ana muxamadun wa ana axmadu wa ana almaaxi aladii yamxu allahu biya alkufr wa ana alxaashir aladii yuxsharu annaas calaa qadamay wa ana alcaaqibu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay inuu 5 magac leeyay xadiidkan sida ku qoran inuu muxamed yahay kii la mahadiyey xamada inuu magacu ka yimi muxamed kii la mahadiyey kii aadka loo mahadiyey inuu yahay iyo inuu axmed yahay isna waa kii la mahadiyey haddaynu wasnu faacilka ka keenno labada midna waxay yidhahdaan waa kii aadka loo mahadiyey midna waxay yidhahdaan waa kii sifaadka badan lagu mahadiyey ana almaaxi aladii yamxu allahu bihi alkufr waxaan ahay buu nebigu leeyahay almaaxi kii masaxayey ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku masaxay gaalnimada waxaan ahay ka soo ururinaya xashrinaya ee dadka qiyaamaha cagayga lagu soo xashrinayo wa ana alcaaqib waxaan ahay ka gebagabaynaya ka cidhbinaya ee aan nebiba ka dambaynin asmaa kalena waa u soo aroortay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taariikhda yaraantiisa xadiidka saxiixu muslimka ku sugan waa ka anas ibnu maalik uu tilmaamayo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo yar oo carruur la cayaaraya in malaa'iga qabatay oo ay lagaday oo ay dabeetana laabtiisa dilaacisay oo ay wadnihiisa serjari ku samaysay oo ay xinjir yar ka soo saartay oo ay ku tidhi haada xadu shaytaani mink taasi waa qaybtii shaytaanku uu kugu lahaa taa macnaheedu ay tahay tasfiya ilaahay uu sameeyey ama taskiya qalbigiisa la safeeyey dabeetana ay u maydhay oo meeshiisii ugu celisay oo sidaasi ku kacay oo uu leeyahay anas ibnu maalik siduu imaamu muslim warinayo waqad kuntu araa ahara almakhiiti fii sadri waxaan ahaa buu leeyahay mid arka meeshii malagu uu ka qalay operationka lagaga sameeyey xataa waan ku arki jiray buu leeyahay nabarka jidhkiisii ilaahay baa daahir yeelay subxaanahu wa tacaala aabbihii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu geeriyooday isagoo uurka ku jira hooyadiiyo xaamilo ah ayuu aabbihii geeriyooday say culamaa'i taariikh sheegayaan kadibna hooyadii ayaa geeriyootay meesha abwaa la yidhahdo iyadoo madiine ka timo maka ku soo socota meel dhexo abwaa la yidhahdo sida xadiidkii nebiga sheegayay ziyaaradii uu soo booqday xabaasheeda halkaas bay iyana ku geeriyootay alabwaa isagoo 6 jir meelahaas iyo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dabeetana nebigu wuxuu soo koray isagoo agoon ah aabba aan aragba hooyana isagoo yar oo 4 sano markii murdacadu baadiye ay ku haysay si carabkiisa iyo waxaasi uu af carabigiisu uu soo hagaago markii la soo celiyay 2 sannadood un hooyadii la joogay ayay hooyadiina dhimatay wuxuu soo koray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo yatiimi alab iyo walummi labadaba ah isagoo agoon rasmi ah markii dambena rajaynimo ugu biirtay qur-aankuna waa ka ilaahay ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala fii suurati duxa waa ka alle subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya in agoonnimo uu ku koray intaa kadib wuxuu galay gacantii awowgii cabdilmuطalib oo aad u jeclaa
awowgiina markuu 2 sano hayay buu isna geeriyooday idan nabigu yaraantiisii axaasiis tiro badan oo waalid la'aan buu la soo koray dareen inuu aabba waayay oo hooyo waayay oo haddana awowgiisii soo korinayay waayay waa 3 waalidkii ka mid inuu laayahay waa dareen runtii qof inta maray inuu dareemi karayo kadib 8 jir markuu soo gaadhay ayaa haddana adeerkii Abu Talib oo caruur badanna haystay xoolo caynkaasiyana aan lahayn baa soo koriyay Abu Talibna muddo ayuu ilaalinaya soo korinayay kaasi waa nabiga salawaatullaahi wa salaamu calayhi in kooban oo ka mid ah taariikhdii dhalashadiisa iyo koritaankiisii hore marka aynu eegno sifaadkiisii khalqiga ahaa iyo qaabku u ekaa in badan waxaynu aragnaa iyadoo culamaa ilxadiid ay sifaadka khalqiga ee nebiga tilmaamaan masaa'il sharciya ku xidhan baa xataa jirta nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay qofka igu riyooda wuxuu i arkay fakaannama yacni shaytaanku ima matalay xaqan buu ii arkay laakiin culamadu waxay yidhahdaan waa haddaad ku riyooto isagoo sifadiisii leh nin madow haddaad iskaga riyooto tidhaahdo nebigii oo lagu yidhaahdo waa nebigii adadhow tidhaahdo xalayta nebigii baan ku riyooday waxba kumaad riyoon weeyaan nin madow baabaad ku riyootee nebigu ma madoobaynbe idan si aad u hubiso ciddan aad ku riyootay inay nebigii tahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi inuu nebi moxamed iyo inaanu ahayn waa inaad taqaanaa sifaadkiisii khalqiga ahaa sifaadkay muxadisiintu ka sheegeen tilmaamaya sidii u ekaa marka aad garato sidii u ekaa hadduu riyada kugu yimaado markaasaad garan kartaa inuu kani nebi moxamed yahay suurada caynkaa u eg baanu shaytaanku isku matali karin ama inaad uun wadaad duub la iska aragto cumaamad xidhanoo kuwa lagu yidhaahdo waa nebi moxamed inta badan dad badanoo ay dadku arkaana noocaasay isaga badan yihiin waayo nebiguba si ay u eegyihiin ma yaqaaniin wixii ay arkaanba waxay moodaan inuu nebi moxamed ay ku riyoodeen inuu yahay salawaatullaahi wasalaamu calayh sidaa awgeed bay culammada muxadisiintii waxay aad u tilmaamaan sifaadkii khalqiga ahaa abuurka ahaa ee uu nebigu lahaa salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa nebigu nin dhexdhexaada oo aan dheeraynna gaabnaynna labada dhan hadday tahay xagga dherarka xiga laakiin aan nin gaaban ahayn jooggiisa marka la tilmaamo wuxuu ahaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh xagga hilibka qof dhexdhexaada oo aan qof dhuubanoo caata aan ahayn qof buuranna ahayn wuxuu ahaa tilmaamtiisa kale nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi laabta nin laabta u weyn buu ahaa oo laab ballaadhan leh timo yar oo halkan ilaa xudunta liid yar oo timaa ku leh ilaa xudunta ay xidhiidhiso waxaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi ma uu mataana weynaa gacmihiisa iyo addimadiisuba waa weynaayeen oo gacmo nineedoo ragga ayuu lahaa wuxuu nebigu lahaa gacan kala baxsan oo aan gacan yaro kooban ahayn oo haddana jilicsan yacni aad buu u sacab iyo gacan jilicsanaa baa la yidhahdaa marka la salaamo ama la taabto wuxuu nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh cidhibta addinka bay yidhahdaa mid aan hilib badan ku lahayn garabka xagga bidixda xiga labada garab dhexdooda oo xagga ka bidix-xiga wuxuu nebigu ku lahaa meel yaroo kuusan oo leeg beed xabad beed oo yar oo timo urursana oo ah khaatamu nabuwa shaabadda nebinimada waxaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wejigiisu miduu aad u qurux badan yahay caddaan mashruub bilxumra bay yidhaahdaan weji cad oo aan xoosh cad ahayne casaan uu ku jiro bay yidhaahdaan weji caddaan uu ku jiro caasuuse ay ku jirto casaan noocahi uu ku jiro oo flowerka oo kale abyadkan midabka yara casaankii uu ku jiro oo kale ayuu nebigu ahaabaa la yidhahaa midabkiisa wejiga marka la eego qaabka wejigiisu mu ahayn mustatiil bay yidhahdeen wuxuu ahaa mustadiir mid wejigiisu uu wareegsan yahay dhabankiisu uu shuban yahay oo isleegyo aan kala dheerayn koodadkiisa iyo dhabanadiisa iyo intaasi
وحابين النبي صلوات الله وسلام عليه ما أفيرين أفكي سوار رورا واسع الفم أيها ما عند يريرين عنده سوسفي عم بيوب الله ناين وعند شحنا وحا النبي صلوات الله وسلام عليه متمه سو أنا هن كوسي ودداسن أو تمها توس كعملهين تمها كجعودة دولة جعودة بدن له يعني ضوضوب كبدن لنا ملهين تما سيد ديسن لكن يرى الله بكرة قرار ما يرى عن بدنين له أيولها تما ولا بحشري مرة قارك ودي الله كان شحمة الأذن دكتا لالات كذا تن أي تميسو قاعد يشرين مرة قارك ودي نواب سيد دين شرو إلا قرب كمالها كان قرب كأكتيسة مالهم بيقاعد يشرين تميسو سيدا وفردن شري دنبو تما وحن حق دمي سكسير رجو مرة قارك ودي نواب كلا شيء شري يعني هل كان دحين تككل الرقمان بيلا بضع لنا أيوك الرقم شرين ده ما هساتي موين تنا كون حريراه بحياة قف كان تما شرع سله قليها هني اللي تشوقني وارك تما هو دوينا يمر كان دحين لجربه تما عاد ورقمه عاد ودعين إليه نبي صلوات الله وسلامه عليه قد كثيف أبو له وقد وينا أنت نودن قد كيسو بوحين شري وحوها النبي صلوات الله وسلامه عليه متمه سؤال فردين وهذه قرتمها إلى اليوم آضو فرده عرم لهين بدن حتى مركو جاريون يعرضي سوى الترين كريه بيد هذا مدد أيوم مضح أيوم يلهن كلها عرضت السنطة وكول الله صدح لورن كرا إلى يين تكلمن يعرعين كاسيا ملهين تميس مدو قصب هاي مرة كارك واحد هن مدو عصوص باكو شرتي قد كي سيكون كان نوع من عصانة طيب كي بدنا يومرين شري درادين بين هذا يعني وحي ودقوم كهاي ترى بدنا واسم النبي صلوات الله وسلامه عليه نلاشي سواها عن كوا هيدنو آد النظافة بدنا أو ما يرشى يس نظيفين تسوينا بدنايد فرشدة تمهيسية إلى لنتي سوينا وناكسنايد طيب كه وحن لا اسمرية أدوكه إنه نبي هو استعمال شري صلوات الله وسلامه عليه ويسحبه يقانين دون نبي مال فرسته عارفين إنه نبي كفي لي ماشي وصاف فرسته إنه يسوىها إن شيء عرفته كسو أدوك كسو بحين يسوىها إذن علماء واحد هذا كمال الخلق بلها نسمة شريد وقروح بدن النبي يقولها صلوات الله وسلامه عليه يعني إن مال تاجن أو قروح بدن إن ما بوها marka la tilmaamo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyada duruus bay u baahan tahay in laga warramo waayo guriga iyo sidoo uga dhaqmi jiray mujtamaca iyo sidoo ula dhaqmi jiray maamulka iyo sidoo ula dhaqmi jiray dagaalka iyo sidoo ula dhaqmi jiray marka la eego nabiga dhaqamadiisa cibaadaadkiisa akhlaaqiyadkiisa marka la eego dhaqankiisu waa waxaan runtii la koobi karin وانا حديث مسلم كي لا عائشه واطله كان خلقه القران نبي صلوات الله وسلامه عليه مركي لو ويدي اخلاق ديس ده قران صعنا يبوها بيلاد قران اي اخلاق ديس هي وحنا وقف لنا اخلاق ديس وحي هيدين الى هي قران كوكت المامي سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم وحد كسغنت يبال لي سبحانه وتعالى اخلاق كريسة جملة اسمية مؤكدة بأدوات التوكيد إن يلا وإنك لعلى خلق عظيم وحات كسو أنت يبقى الله سبحانه وتعالى أخلاق أدوي جملة اسمية أولي بالسيسي فيه عظيم لقسي فيه ويركوا من هذين نكتل مامنا وحيد هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وحوها أن متواضعة سلول دقة ومتواضعة لكن تواضعة أي لسعة طبعا هيبة يدتك هدرك هيبة يستان سوى متواضعة أو سوى سلول دقة لكن إنكم أنتوا يمي مركو يسر تاجي وقريري أو نبي كويري محل لقريري سا أنا وحنا هاي هميد هو يدي أي قديد كعوني شرتي قديد كوا هيلي بقيدين وأنت الله ورضى يتطلع عنها ده وورسلان قديد كعنتاي ده شيء بده بيقول وحبا قربانين إذن بتواضع صوت ربنا وحنا النبي صلوات الله وسلامه عليه بوحشاد بدنا جيسي هدنا وها هل قلت الماما إنه وقعن في الرايو ديغسيها
haddana ka dheeraa ismuujinta iyo magacraadinta wuxuu caan ku ahaayo bulshadu ay ku taqaanay ammaanada wuxuu caan ku ahaa الصدق في القول والعمل mid run sheega camalkiisana ka run sheega hadalkiisana ka run sheega wuxuu caan ku ahaa nebigu الزهد في الدنيا عند إقبالها mid dunidu marka ay soo waajahday ku tiro badato isagu ka zaahida oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xilliyadii dowladda islaamiga xoolaa badan ay heshay isagu haddana xasiir yaroo dhinaciisa ku sawirma buu ku jiifay waa kuwii yidhi aanu furaash yar ku siinna ilaahay rasuulkiisiiyow ee uu nebigu lahaa war aniga iyo adduun maxaana kala galay nin safara baan ahay oo geed ka hadhsaday ee maxaa aniga macmacaankeediiyo waxeeda iga galay tilmaamayey idan markay dunidu soo qaabisho mid ka zaahida oo aan furshaanta hareeraha iska dhigdhigan oo iskaga dhalaalin buu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka gacantu madhantee dunidu ay jeesatana mid aan hunguri badnayn oo iska daba ridin sidii xoolo loo heli lahaa ayuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa mid acmaashiisao dhan ilaahay u khaalis yeela wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh carabka iyo afka mid aada u fasiixa oo deggan oo si deggan u hadla oo saxaabada qaarkood ay leeyihin nebi maxamed haddaad istidhaahdo hadalkiisa tiri waa tirin karaysay laakiin isaga ilaahay dee wuxuu siiyey jawaamic ilkelim ha la tirin karaya hadal kooban oo macno ballaadhan leh ayuu ku hadlayay oo ka mid ahaa waxyaabihii ilaahay ku gaar yeelay waxaa haabit iljanaan mid qalbigiisu mar kasta uu deggan yahay oo aan baqaha aqoon haddii dagaal lagu jiro iyo haddii nabad la yiyo mar walba qalbigiisu uu deggan yahay waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nin xakiima oo caqli badan wuxuu ahaa nin intelligent ah oo xusni lfahmiya oo aad fahamkiisu uu sarreeyo wuxuu ahaa mid naxariis badan oo ka weyn iyo ka yarba u naxariista oo dhinaciisu dabacsan yahay wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dareenkiisa iyo mashaacirkiisu mid ay sarrayso oo saa daraaddeed dadka cafiyo oo iska dhaafa oo ka xumaha sameeya u dulqaata wuxuu nebigu ahaa mid ka dheer adayg iyo qalqallafsanaanta iyo adadkaanta wuxuu ahaa nebigu mid sabir badan meelaha dhibtu ay taagantahay ku sabra dhiiran xaqa iyo odhaahdiisa ku dhiiran idan sifaadkiisu nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khuluqigaahina aad bay u tiro badnaayeen iyana weedhaha koobanaan iskaga soo koobsanno maadaama warkeennu uu tilmaamo yahay ee aanu deris noqon karaynin noloshiisa markaynu eegno wuxuu nebigu la koray sidaynu ka arkayna taariikhdiisa nolol xayaati alcamali waalkadx nolol shaqo iyo adayg wadata oo aan nolol raaxa iyo dhaldhalaal ku bilaabantay aan ahayn yacni nolol adayg ku bilaabantay buu nebigu la koray maadaama isagoo uurka ku jira aabbihii dhintay hooyadii isagoo 6 jira dhimatay awowgiisii hayay isagoo 8 jira uu dhintay abi aalib uu la soo koray abi aalib wakhtiguu la joogayna axaadiista nebiga ka asaxday yani xadiidka bukhaari waa ka tilmaamaya nebigu inuu yidhi maa bacaa allahu nebiyan ilaa raaci alghanam ilaahay nebi ma soo saarin ilaa iyo ari buu raacay markaasay asxaabtii waxay ku yidhaahdeen wa anta ilaahay rasuulkiisii oo adigu miyaad ari raacday faqaala nacam kuntu arcaaha calaa qaraariita liahli maka haayo qaraariid baan ku raacay buu nebigu yidhi oo reer maka ugu raacay riwaayaad kalena waa soo arooriyaan marka la isku soo daro culamaa ilxadiis waxay idhaahdaan adeerkii abi aalib caawintuu caawinaya waxoogaagii xayntii yarayda u haystayna wuu raacay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markuu yaraa isla markaa xoolo kaloo lagu darsadayna wuu raacay nebigu oo qaraariidki waxay leeyihin waa lacag jajabka yaryare lacagtaa qayb ka mid ah ayuu ku raacay marka waa ujra yacni inuu shaqaale noqdo isagoo yar oo uu xoolo raaco shaqo ka shaqeeyey culamada qaar baa yidhaha qaraariid waa makaan lacagba maaha waa meel maka u dhowo waa ka laakiin muxadisiintu waxay u badan yihiin inay lacag tahay sidaa awgeed bu bukhaari baab alijaara buu ku soo aroorinaya xadiidka markuu warramayo baabka ujrada culamadu waxay kaloo sheegaan racyi alghanamka in xikmad badani ku jirto oo adhiga iyo raacistiisa iyo ilaalintiisu inay ku dhadhowdahay ama se u dhiganta bini aadamka iyo ilaalintooda iyo raacistiisa
نبي صلوات الله وسلامه عليه يرانتي سبو الشقضة سب الابي او وحاها مد يرانتي سنولشا ادق سو كوري دل يرانيمديسي وحيابها تاريخ كسكتا waxa kamida taariikhiyaanadu waxay sheegaan laba heshiis oo midna xilf الفضول loo dhajray midna xilf المطيبين inuu galay nabigu sallallahu alayhi wa sallam alayhi taariikhiyaanada qaar koodna waxay dhaadaan labadan xilfi isku mid uun bay ahaayeen hal heshiis uun bay isku ahaayeen waxaana ku soo arooray xadiidku nabigu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam alayhi shahidtu xilf المطيبين مع عمومتي وانا غلام فما احب ان لي حمر النعم واني انكثه إنه النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه وحان كقيب قالي هشيسكي أما قاشان بورتي مطيبين وحانا كلا قيب قالي أدير رضيب النبي قولي أنا قو ويل لليراء منتشعلي هشيسكاسي أن واقع قالي inaan marnaba buriyo xataa geel cascas hadii la siinayo heshiiskan culimada taariikhdu xadiidkan imaam ahmed iyo bukhari fi al-adab al-mufrad wa soo arooriyay xaakim iyo tabrani ba in heshiiska kani waxa uu tilmaamayaa qabaa'il carabti maka deganayda ayaa waxay isugu yimaadeen rag waaweyn oo kamidi gurigii ninkii la oran jiray abdullah ibn jad'an nin maalqabeen oo tujaartii waaweynayda reer maka ka tirsan gurigiisa la isugu yimi waa heshiis lagu galay magaalada maka la yiraahdo haddii cid lagu dulmiyo in loo heeliyo ciidan toliya maadaama ay magaalo baac mushtara hay dad baa iman jiray baac mushtara xoolo keensan jiray dadkaasi baac mushtarka haddii aan ama abaan ku lahayn magaalada iyo cid wakiilka ah oo uu magaciisa ku daaqayo wax ku iibinayo ama aanu reeraha meesha u dhashay ahayn waxa dhici jirtay rag waaweyn tujaarta qaar ka mid inay iska dulbiyaan culimada taariikh waxay sheegaan nin Yemen ka yimi oo meesha yimi oo nin nimankii waaweynay carbeed ka mid uu dhacay oo dafiray oo dabeetana gabay tiriyay intuu Kacbada tagay oo gabaygii uu tiriyay oo kaga waramayo jaarka Kacbada ragiina ay dulmiga inay iska deysaan oo caynkan oo markaasi sababtaas ay dhalisay xilfiga ninka gabayaaga gabayisa sababtay doontaba ha noqotee wuxuu ahaa heshiiska kari heshiis ay galeen odayadii Quraysheed rag ka midi Abdullah ibn Jad'an ninka la yiraahdo gurigiisa lagu galay oo mu'dad heshiiskanina uu yahay inay qofka la dulmiyo wax ka dhiciyaan oo ay uga qaadaan qofka dhaalimka wixii hanti iyo xoolo uu ka dhacay inay uga qaadaan ballan ah ayaa meeshaasi lagu wada galay ballankaasna nabigu sallallahu alayhi wa sallam alayhi isagoo dhalinyaro ah ayuu adeeradii kala qayb galay waana ka tilmaamaya maantana inaanan marnaba buriyeen waa qiimatul adala wa qiima insaniya ma kala leh inuu muslim galo inuu gaal galo in cid cadaalada qofka muslimka waa inuu taagnaada wixii cadaalada gaal iyo muslim iyo cid ay doonto ma noqoto qofka muslimka ahi cadaaladu buu yaqaana cadaaladaanu taageeraya in allah ya'muru bil adli wal ihsan ilahi cadaalad mutlaqoona faray waxaynu ka awoodno idan qofka muslimka ahi cadaalada markastaba waa inuu taagnaada nabigu dhalinyaranimadiisi sallallahu alayhi wa sallam alayhi waxyaabaha taariikhda qabla al-bi'tha kamida la tilmaamo waxa kamida inuu guursaday gabadhii la oran jiray Khadija bint Khuwaylid oo ahayd qof dumara oo carmal ama garoob ah oo hantiileeyo xoolo leh oo xataa sida taariikhyahanadu ay sheegaan nabigu sallallahu alayhi wa sallam alayhi hantideedii uu ugu baac mushtareeyo ka shaqeeyay tijaara uu ku kaxeeyay gabadhaasi uu guursaday caruurtiisa intii ugu badnayd yani Ibrahim oo Maria al-Qibtiyya gabadhii la oran jiray boqorkii Maqooqas ee Masareed uu soo hadiyeeyay mooyaane caruurta inta kalaba afar hablood iyo labadii wiil kalaba waxa uu dhalay nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi Khadija dhashay
ضدك وحا عام بحضي رأيك واغدي أو خديجة فرتنشربوكو قرصدي ابن إسحاق لكن وحلي سيدي لا تنشربوكو قرصدي إن خديجة مركزي سيدي لا تنشر هيد عقلي أنا وحي لدو إن سيدي لا تنشر هيد ويا أفرتنشرين اللي حرورة نشا مفضوضة لكن سيدي لا تنشر اللي حرورة وعنا لك رئيسا وحانا موقت خديجين اللي حرنا شيء النبي صلوات الله وسلامه عليه لبضوا بدون سند بان رجينا هنا كسا أروريين من حيث سند الدلة تحقيقين لا قابك حديث كمدينة سند في عن ما هيسته لكن ولا قول أهل التاريخ منا واقد يسا أروريا منا ابن إسحاق ابن إسحاق بان عقل قودو ما دام أي خديجون الشيء النبي صلوات الله وسلامه عليه لحرورة يقول الشيء قاسم هي زينب هي الرقية أم كلثوم هي فاطمة هي عبد الله وكيو يرايا ولا بول يا فرهبلود قاسم أو بيلين تاريخي أنا دو أسكوخ الخلافة عرورتا كي وينا قاربايدا زينب باوين قاربايدا قاسم باوي ويسويد ويداريان لكن سيدا عان كاهد يقول روحي شيغان قاسم باوينا وحانا يرى عبد الله وعبد الله تاريخي أنا ذكر كل واحد في عهد الإسلام ولا شيء ولذلك بقى الطيب الطاهر لو بحي بيلين عهد النبوة أيوة شيء بيت الماميان ونلحدا عفورة لما ضد الحجان يافر هبلود ونحدا كتشرة أفرت هبلود يلا بدا إنن فاطمة مركا لقربه هي حتى إبراهيم أماري ده شيء لحدا سبا واحد انتاني تو النبي قلنا الله صلوات الله وسلامه عليه عرورتي سي لح كم دا يسقر نول النبي وآصي waxa isaga ka geeri dambeysay oo qura Faatima وعلي قبي iyana 6 bilood bay nabiga ka dambeysay nabigu markuu geeriyooday 6 bilood kadib ayay iyana geeriyootay idan 6 bilood geeridii nabiga kadib wax nabi maxamed dhalay salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo isagu toos u dhalay ma noolayn taariikhda dhalinyaranimadiisa haddaynu wax kale ka tilmaamnay qabla nubuwada waxay taariikhyahanadu sheegaan carabi mar inay ku heshiisay in kacbada la dumiyo oo dib loo dhiso sababa keenay bay yiraahdaan daadad jiiday waxyaabo cilal bay sheegaan marka intay dumiyaan inay dib u dhisaan oo ay waliba lacag xalaal ku dhisaan waa dumiyeen lacagtii xalaasha ahayd ee mala lagu wada dhisi la waa la waayay in baa laga kacay waayo xajarka inta yare hijru ibrahim inta yare maga kacbada ku aragteen circle-ka yare sidaasi waxay ka mid tahay kacbada lafteedii in daarta la galiyaabay inta daartu ka dhisanta laakiin quraysh baa waaga ka guurtay maadaama lacagta ay ku yaraatay oo space ka yar ayay dhistay marka in baa banaan ilaa hadda inta ay dhistay qurayshi markii la soo gaaray xajarul aswadka iyo meeshan uu kaga jiro in la saaro ayaa quraysh isku qabsatay de qabiilkii sharafta qaadan lahaa xajarul aswadka qabiilka meesha galiya de sharaf dheeraad u sheeganaya markii dambe waxay isku waafaqeen ninka ugu horeeya ee albaabka inooga soo galahayna kala xukumo sa taariikhyaanadu sheegaan nabi maxamed baa ka soo galay albaabkii ay sheegayeen salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxay qaateen inuu yahay al-hakam al-amin mid lagu kalsoon yahay xukunkiisa isna taariikhda xukunkii ku caan baxay buu qaaday inay dhulka dhigaan dabeetana dhagaxa la saaro la qaado meeshii marka la gaarsiiyay isagu intuu ka qaado uu meesha galiyo marka qabaa'ilkii oo dhan waa wada qaadeen meeshina waa la wada geeyay cidana cid marka aan ugu sheeganin waxa nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi dhalinyaranimadiisa si uu ku caan baxay as-saadiq al-amin mid run sheega oo amiin oo la yaqaan ahaa oo hatta markuu hijroonayay iyagoo la dagaalamay inay wadiicooyinka iyo alaabta u dhiiban jireen runna ay ku yaqaaneen oo markuu fuulay safo iyo marwa muxuu burta safo markuu fuulay waa sabaxa u lahaa wuxuu ku yiri war haddaan idin idhaahdo burta gadaasheeda ciidan baa soo roorayo idin weeraraya akuntum musaddiqi may rumaysanaysaan saanan ku rumaysama ku idhaahdeen mayada been bacdi ku taqaanay idan saadiq al-amin baa loo yaqaanay tijaaru ka shaqeeyay waa ka xadiiska saxiix abi daawud albani oo ku tilmaamayo nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi fathu makkah markii makkah la furtay baa nabiga waxa uu yimi nin saxaabi oo la oran jiray asaib ibn abi saib markaasuu ninka kan baa mushtar bay wada ahaan jiray nabigu wuxuu ku yiri marhaban bi akhi wa shariki kana la yudari wala yumari
soo dhawow buu nabigu ku yidhi saaxiibkay iyo walaalkayow waa yani wuxuu ahaan jiray buu nabigu leeyahay shariiki tijaarada midaanu shuraka ku nahay buu ninkan ahaan jiray oo laa yudaari walaa yumaari aan muran iyo waxba toona aqoonin nin samax oo tijaaro fiican cagsigana waa la soo arooriyey inuu yani saayib weedhaha karoo kale lahaa calaa kulli xaal waxyaabuu nebigu ka shaqeeyey waxaa ka mid ahaa tijaarada saa la wada yaqaano taariikhdaasi waa taariikhdiisii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh intii ka horeysay waxyigu intii aanu ku soo degin haddaan iska raacinno maadaama ay ku jirtay bunuuddii muxaadarada la yidhi ka warran aswaajtiisii khadiija wuxuu guursaday nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wakhtigaasi intii aanu nebiga noqonin buu khadiijo guursaday khadiijo intii uu qabayna dumar kale nebigu lama guursanin salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idan khadiiji nebiga iyadaa marxabaysiis ugu fillayd waxay ahayd gabadh akhlaaq fiican oo dhaqan fiican oo qurux badan oo hanti leh oo wax kasta ku wanaagsan mashaakil oo dhanna nebiga uu ka dugsaday walidaalika isaguna nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cidna lama guursanin khadiijo keligeed ayuu qabay ilaa iyo intii ay ka dhimanaysay markay dhibatayna siduu u jeclaa wuu xusi jiray caaisha oo ah inanta qura uu keligeed guursaday inannimo uu ku guursaday yacni ayaa jacaylku nebigu u hayo khadiijada dhimatay ayay ka masayri jirtay way ka hinaasi jirtay yacni siduu u xusi jiray nebigu khadiijo uu u hadal hayn jiray haddii uu neef qalo hadduu sadaqo bixinayo khadiijo asxaabteedii ha loo geeya buu odhan jiray ilaa ay maalintii dambe weedho kulul tiri intay cadhootay ayay tidhi islaan qowlo lacasca soo geeriyootay oo ilaahay inan yar kuugu bedelo inbaad hadal haysaabay ku tidhi markaasuu nebigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wallaahi baan ilaahay iigu bedelin mid ka khayr yacni wuxuu nebigu tilmaamay inaan cid ka khayr badan oo khadiiji markii dadku i beeniyey way rumaysay buu lahaa nafteedii iyo maalkeediiba way ugu taageertay yacni wuxuu tilmaamayay waxyaabihii ay u gashay khadiija markaa nebigu cidna lama guursan intuu qabay carruurtiisoo dhanna iyadaa u dhashay marka laga reebo maariya alqibtiya inankii ay dhashay ibraahiim ahaa culammadu waxay yidhaahdaan haweenkii muslimiintoo dhanna iyadaa u khayr badnayd qowl baa jira la ysku khilaafo iyada iyo caaisho kee fadli badnaa culammada badh badani waxay qabaan inay iyadu fadli badnayd qaarna waxay yidhahdaan maya caaishaa ka fadli badnayd qaarna waxay yidhaahdaan waa ka tawaqufaynaa masalada labadaa markay isbarbardhigooda noqoto khadiija waa gabadhii ku caanka ahayd in ilaahay salaan u soo diray yani isagoo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh malakuljibriil ula joogo ayay khadiijo raashin soo sida ayuu malakuljibriil ku yidhi waxaa soo socota khadiijo raashin sida ee faqra calayha asalaama min rabbiha wa minii khadiijo salaan rabbigeedu soo diray gaadhsii anigana iga gaadhsii buu jibriil ku yidhi idan khasiisaadka iska lahayd ilaahay baa subxaanahu wa tacaala min fowqi sabci samaawaat salaam uga soo diray haweentii khadiijo la odhan jiray jibriilla iga gaadhsii buu lahaa waa qofkii ugu horreeye nebi moxamed rumeeye salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee markii uu yimid dejinaysay ee rumaysay markay khadiijii ka geeriyootay waynu iska guud maraynaa haweenkiisa wuxuu guursaday qof dumara oo da'weynayd oo sawda bintu zamca lo odhan jiray iyana waxyaabaha caan ku ahayd waxaa ka mid a waa gabadhii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi jacaylkiisa iyo raalli ahaanshihiisa ka doorbiday markii dambe habeenkeediina ee tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow anugu da' baan ahay waxaan ku siiyey habeenkayga ee dumarkaaga kaad jeceshay caasho ugu jeclaa caashaan ugu daray bay tidhi habeenkayga ee guriga caasho habeenkaana u hoyo wuxuu kaloo guursaday nebigu zawdo dabadeed caaisha bintu abi bakar oo iyadana sida axaadiista nebiga ka asaxday ay sheegayso in riyo lagu tusay gabadha dambe uu guursan doonaa inay tahay caaisha riyo inuu ku arkay dhallinyaranimaanu ku guursaday waxaanu nebigu kaba geeriyooday salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyadoo 18 jir ah ayuu nebigu ka dhintay waxaanay noolayd wakhti dheer caayishi 58 hijriyada ayay dhimatay
waqti aad u badan ayaa cilmiga laga qaadanayay markay dhimanaysayna waxay sii dardaarantay inuu Abu Hurayra jinaasadeeda ku tukado waxaan u malaynayay inuu sanad ka geeri dambeeyay sina 59 uu dhintay waxaan ahayd haweenkii uu nabigu qabay tuu ugu jeclaa markii la weydiiyay haweenkaaga ayaad u jeceshay Caasha buu sheegay dadka ayaad ugu jeceshay baa la yiraahdaa Caasha raggaan u jeednaa baa la yiraahdaa aabaheed buu yiri waxyaabay gaarka ku haydna waxa kamid ah inan iyadoo qura ayuu ka guursaday inta kale uu dumarka kale uu nabigu guursaday ba garoob bay wada haayeen ama armal waxyaabay gaarka ku ahayd waxa kamid ah marada iyada uu la huwan yahay ayaa waxyigu ku soo degi jiray duuna ghayriha min an-nisaa waxay gaarka ku ahayd waxa kamid ah ilaahay baa quraan soo dejiyay xumihii lagu sheegay ka bari yeelay waxyaabay gaar ku ahayd waxa kamid ah dhabteedu nabiga naftu kaga baxday عائشة إنها سينسكو صور دافعنا وحكلا نبي قرصة حفصة بنت عمر بن الخطاب أنتي سي حفصة لو رنشري وعرمل هاي وفري دبتنا دبو سو عليي حديث قاربة المام سين لفري نبي يقولون دبو الراجع سده انت سوى الصحدي حديث مركز اللي سوق جاي حسن نقون كرتانا وحيت المام سببت اللي يدو سو علي النبي قال الله أمره يقول إنها قوامة صوامة وإنها زوجها يوم القيامة أو يعني زوجتك في الجنة إن لقولي سعلي حفصة واتو صلاة بدن وإلهي يتاغن أو صوم بدن هويك هاك الجنة داني كتير تابع لقولي نبي صلوات الله وسلامه عليه علماء الحديث كانوا حيود لشدان قفكو يضعانو نينك يقبر دعانا يسكو هاينين عبادو يسمها يوحاسي مرة قاركود إن يدعي كرتو طبايع دو دين يثير وافق ويدو oo sababa furinka keenay ka mid noqoto waayo ilaahay baa ku sifaynaya xadiistaasi tilmaamayso inay xafsi ahayd qawaamatun sawaama iska soo gudub haweenku guursaday oo muhabiba ka mid ahayd Ramla bint Sakhr ibn Harb Abu Sufyan ibn Harb inantiisi Ramla loo oran jiray iyadana armal bay ahayd iyadoo joogta ard al-Habasha oo haweenkii hijrooday ka mid oo Ethiopia ama Habashida degan أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه طلبين لو غوريو أبو داود النسائي سيت الماما يانا ولو غوريي والنجاشي إسلامي حبشيدا كتلين شري أيام مهركين النبي كبحية أفر بقول دينار بكبحية أفر بقول دينار و سبحان الله بحيث لا واحد بدأ وعيدا وحلك يعني أفر بقول وحتكون فتا 4.25 جرامز وده كيلو يذهب نغنية وحكم ده هوانكيسي هوانيدا اللحاد أم سلمة هند بنت أبي أمية ويانا هوانكي إن بدأ النبي كدن بيي لحدن يلا بدي بيد ما طيب الله يرادا علماء بربا واحد هذا هوانكي النبي قبضي وقدم بيسي وقدم شدن بيسي قارنا واحد هذا أرمي ميموني كدن بيسي وحيابا يقارك كتينا وحكم ده وهوانتي أركتي ملك الجبريل isagoo leh suurada dixyati alkalbi saxaabiga la oran jiray saxaabi aad u qurux badan baa jiray oo dixya alkalbi la oran jiray oo safiirkii uu nabigu dawladda Romanska Hiraqal boqorkii la oran jiray ninku waraaqda ugu dhiibay nin qurux badan oo saxaabiya buu ahaa jibriil baa nabiga u soo galay oo ninkaas suuradiisa oo kala leh dabeetana cabaar buu la hadlay oo baxay musalamu ku yiri ma garanaysay ninkan la joogay dawad dixya alkalbi baan u malaynayaa bay tiri ما هنا جبريل بوهاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أو يسوع كيسيء إذن علماء واحد هذان أم سلمة مناقبت هذا واحد كبدين جبريل أركتي يسوع له الصورة دي بني آدم كوجي من النبي صلوات الله وسلامه عليه هوين كي كلاو النبي وجورسدي أنت عن صوش يجي هوينه هربا وقريش ولؤي بن غالب بيوحوا يسوي ما دار وقريشين هوين كل النبي وجورسدي وحكم ده زينب بنت جحش أو بنو خزيمة بن مدركة ابن إلياس يد قريش معها زينب بنت جحش أيا كمدة وينا وعرمل كجور زينب صلوات الله وسلامه عليه دخل عائشة ويانا انت قبل عرمل بيهاين ان هوين إذا تاني يدنا دنك لنا نبي المفتي بيهاين ويددي بعد الشيء وما بنت عبد المطلب بعد الشيء نبي المفتي هاين iyana waxyaabahay ku faani jirtay waxa kamid ah haweenka nabiga kale waxay oran jirtay idinka aabayaashiriya reerihiina idin guuriyay anigana ilaahay baa iga soo meheriyay min fawqi sab'i samaawaat
سورة الأحزاب وكإلهي كجور رميه زيد بن حارثة مركو فري النبي صلوات الله وسلامه عليه لو جوريي وقال له جوريي وحكم إذا هوينك النبي وجورسدي زينب بنت خزيمة الهلالية ويضنا وحكى جريودي نبي جاي نبتجي عبد الله بن جحش زينب تو ولا شيء ولا الكيد وبدر حاضري دبتنا أحد بان رجينا يا إنه مالتي أحد لدلي سنة كيسة حدا يجري هذا ملها صنفلين وجورسدي وحيد قبل عادو صدقة بدن وأم المساكين بالله يقاني صدقة عروت سين شرتي وأنا خديجة بديت هوينك النبي صلوات الله وسلامه عليه هوين إذا وقبي يسقون نول جيريوتي هوينك كلام النبي ويكدم بيين لكن قبل تاني واحد جيريوتي النبي صلوات الله وسلامه عليه لو بلاد أما صدح بلاد ميلها سوقبي كدب نواب جيريوتي إلهي بوفصدي وحكم دايت هوينك النبي وجورسي جويرية بنت الحارث وبني المصطلق قبيل كيلو رنشري كتر سني وقبلني النبي صلوات الله وسلامه عليه ثابت بن قيس تقيفته هلي دبتنا ومكاتب الله علي إني مدح فرشة بحسوس كحروده مدح فرشة دي بين النبي قوتمي وهشيان مكان النبي وانتو كبحيي مدح فرشة دي ومهروغان جاي أيو جورسدي صحابتنا وحيابا الله يكفان تو حكم إذا بقول غيركو دي كم إذا بالله حرية مركو النبي جورسدي هوينكو النبي جورسدي وحكم إذا الصفية بنت حيي ابن أخطب وهيد هوين يهودية ده قبل نبي هارون كو أبترسطه يهودا كمده سنة تضباد خيبر أيو جورسدي النبي صلوات الله وسلامه عليه وهي علماء يراهدان لحي صدنك هجرية ده ميلها الصيد مطي قارنو حابي شيغان كونتن كدواتكي واقعدي وحرية ده دبتنا عتق قيدي بالصداقة دي كدق النبي صلوات الله وسلامه عليه وحكم إذا هوينكي كلاو النبي جورسدي ميمونة بنت الحارث الهلالية إن ما شاء الله يراهد الصرف وما كتضبا ما يلو شرتي يضم لمرأيه أيو النبي جورسدي هل كاسانو كلا قلقلي كدبنا هل كي يضم مريسا هدنا نفتو كبحري وحيد هذا المركا قبضتن هل كاسان لقو مهريي أو لقو جورسدي أو يكو جيريو تبا الله يراهد إن وانا قبضي وقدم بيسي والنبي جورسدي صلوات الله وسلامه عليه وحرجيني حجة الوداع مالها غير كذا وانا قبض الله اسكوها يما يدا وغيري دنبيسي مس قبض هورين وشيغني لبي لخدن كي دمتي قبضتنا قار باله سدخي لخدن كي دمتي يدا كغيري دنبيسي قبضتني waxay habar yaro ahayd oo walaasheeda Sheikh Abdullah ibn Abbas waxay kala habar yaro ahayd Khalid ibn Walid iyo Abdullah ibn Abbas habar wadaag bay ahaayeen laba hooyo walaalaaba kala dhalay haweenaydan uu nabigu guursadayna salawaatullaahi wa salaamu alayhi habar yartood bay ahayd marka inta la tilmaamo 11 kaasi dumara ayuu nabigu intuu guursaday u galmooday oo ay guri wada hoydeen 11 kaasi laba isagoo nool bay dhinteen sagaal isagoo qababu ka geeriyooday oo gadaashii ayay dhinteen intuu sameher ku xidhay intan way ka badantay bay yiraahdaan culimada qaar kood ilaa 7 kale ay sheegaan oo intuu meher ku xidhay aanu guri aanay wada gelin oo furay bay sheegaan sidii markii uu guriga loogu keenay tiri ilaahay baan ka magan galay oo yiri cid weyn baad magan gashay iska tag iyo qaar lamida taasina waa umuuman haweenkii nabigu guursaday salawaatullaahi wa salaamu alayhi xil waqtigii nabinimada wali maynan gaadhin waqtigiina saacadii waa tagtay nus saac baa inoo hadhay waxaan isku dayi doonaa inaan bal markaa taariikh kooban tilmaamo nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi cahdigaasi nabinimada ka horeysay ilaahay baa dhowray subxaanahu wa tacaala oo gaalnimo iyo macaasida waaweyn midna kuma dhicin kacbada maalintii la dhisayay dhagaxa loo soo gurayay oo uu 35 jir meelaha marayo ayaa isaga iyo adeerkii baa dhagxanta soo wada gurayay dabeetana adeerkii baa ku yidhi meel yara koona iyadoo la marayo dhagxantii la gurayo say culimada taariikh sheegaan xadiidka intiisan kale laakiin Bukhari soo aroorinaya ayuu wuxuu ku yidhi war marada tan intaad furato dhagaxani uu ku dilayaa iyo garabka saaro isaga dhig marka cawradiisii wax ka mid ah baa muuqday dabeetana nabigu wuu miyir beelo wuu dhacay indhaha cirka u jeestay markii uu soo kacayna
وحصوته سيسقول إزاري هوس كنت جيجا السيا مركي الله حري ما لنتا كدبنا إسقاو استنباء عوردي سومه قتل وما رج نبي صلوات الله وسلامه عليه وأنت يا النبي آنو نقنن أن إلهي مركا حمه ديودن وكبد بادية حديث كشيء يا إنه مالين أراس يوم لقيت من يسير تقوى عين قاسي علماء بدنا أهل الحديث كم يدي واحد قبارنا أنا أصحين سيدا ابن كثير وكم يدي هاي إن قصر رقبر حاكم الذهبي يسكت دياننا تصحيحيان أن مركا إنه صاد وضوبنه قبل النبوة وحيابه عنك كل نقضي ونبي شيء لك حن سلامي ترتيب وكور رمية وإسكسو كوبينه عهد النبوة أيان كوبان كتل ما بمرك نبي صلوات الله وسلامه عليه وحي روح قبل أبمي لما تاريخ سيشيغيان سوى فرتنشير سوى قاري وحانا وحي قووه رياض عن بيض وحي كمت لح بلاد بو ريو وإيمانيسي والصبح هنا كفلق الصبح واقو مركو دلا عصد الله أركوك له وأركي كدب أيا النبي قوحا لتشعليسي إنه كله مالسك عبادة استه غار حراء أيو قلي قد كاسبو ويمي ملك الجبريل واكي قلقلي يري أخري أو نوي رحا ما أخري صدح جار مركو قلقلي كدب قرآن يقوه الرجال لو سوى حيضي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إيادنا وحل يسكن رأسي سيهي مالين السنينات إنا يهيد مالنتي وحيه كسودقي مال مكدبنا وحا كسودقي رسول لماضي يعني تنهر النبي النمدي بيهي النبوة ما المكدبنا وحا كسودقي الرسول لماضي وإلهي لي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجس فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آيات كاسينا وحي سوغا يا نبي الرسول لمدي سيو إلهي لي كاستودوب يو كع دق بالليل وقت غير راحة يستودوب كو كعدا ماضي إن الدنيا دردن أدو الرسول نغطو دين تقارسي سال غفري كعدق وحلا فرينو ألوين أيه والدنيا وحا كبرياء شيكتو أردن أنا وحبا وأرق إلهي يقول إنه وينيه وربك فكبر وحلا فري وثيابك فطهر والرجس فهجر ظاهر كيسية مقال كيس السرع إيا قلب كيسية قديسة لبضبا إنه طاهر ياله وكان سرنا نجاسات كي خبث كي وحي حنس كطاهر ياله قلب كيسنا شرك إيا النفاق إيا أعمال حن إيا حسد إيا حمو أردن إنه نظيف كهذا أو شوائب تردن وكان نظيف هذا وحكى الله فري ولا تمنن تستكثر إن أنو من الشيغان قلت شيغان يسوغو مودا يينو عمل بدن قبطي يواركو حقوق الله سبحانه وتعالى إن مركز تكوينتين تو عملك وقبطه يجهد بدن إنو بحيين لوغا باهنيه وأنا وحا لغا ربو قفك مسلم كي نبطأه وويردا إنانو كلوين أنو حقاق خير كي أتسميسا وحا لوغو قبقبية آيات كاسي إنو الصبره دعوة يا إسلام نمدا وضه ويدتك عناد يا كهر منيا وحيهين ضد بدن ومشكلات بدن با وضدا سكر كل مدونتين وصبره دعوة مركي ودي زاد إلهي وحوسي يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه وانقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد مركو صادري حول اللي مسؤول ديبين الله ما ورنا قالها قاضوا ضدك دولة كوسمة يكو إسلام يكو ملاك لقوم صادرين الله ما ورنا ملاك تاسا كولا سعون يسوي حكاهر يبقى ضيق مضح كل فنيا أسكرتك حيسو وهلقوا يدور ضدك وتقول الدين شيء قدس ومحان ده ومضى كلا هرتجا محا هايستا إلهي كحرنا وهبينك يستقبل يا أيها المزمل وركستو دوبا يوبا إلا إلهي
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كان استوضوب يوم هبينكي انتي سبضان كعبا ليري إذا وحى النبي قال فرو زاد وأهنا إنه إلهي سبحانه وتعالى عبادتي سبت صده دعوة الإسلامية مركا وحي كتب قاب كاسئة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ده دورنا إنه النبي ودقه نبي صلوات الله وسلامه عليه سيدي علماء تاريخ انتو دبدنا يشيغيان صدح سنادات كواد دعودي سهوس هوس بيسغوتي oo dadku xulanayay oo dadkii uu aqli biday waaweyna ayuu gaar u la hadlayay balaadari ninka la yiraahdo isagu wuxuu soo naqlinaya 4 sano yahay laakiin ahlu taariikh waxay u badayeen 3 sanadood ahay dacwada bilowgay uu nabigu bilaabay salawaatullaahi wa salaamu alayhi qabiil gaara kuma yahayn quraysh oo 14 qabiil 14 reer bay ka koobantay 14 kama si isleeg ba diintu ugu faaftay dadkii hore ee islaamay waxa kamid ah Abu Bakar oo taymi ahaa qabiilkiisu Uthman oo Umayyi ahaa Zubayr oo Asadi ahaa Ali ibn Abi Talib oo Hashimiya Mus'ab ibn Umayr oo reer Abdiddara Umar ibn al-Khattab oo Adawiya Abdurrahman ibn Auf oo Zuhriya Uthman ibn Mad'un oo Jumahiya yani qabaa'ilkii Carbeed kala nooca taayifadii uu soo ka dhashay quramay noqonine Quraysh oo dhan buu ku faafiyay kharij Qurayshna dad badan عبد الله بن مسعود وهذيل أبا كمدة رير بن هذيلة عتبة بن غزوان ومن مازن أبا كمدة عمار بن ياسر ومذحجي أبا كمدة زيد بن حارثة وكلبي أبا كمدة طفيل بن عمر الدوسي أبا كمدة عبد الله بن قيس الأشعري قبائل خارج قريشة ويان كوانا ترنينه مدمركي وكلي كلي دا كوا دينا كدب إلهي وحفري سبحانه وتعالى الدعوة الجهرية إسلام نمضى إنه كرق دواقه ضدر إنه ياره وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن المشركين إلهي وحيدي تلقى قد دو ير تلقي سدوا قريش أردن فحد كلو الدكتابة ليري محي فاصدع بما تؤمر وحل غفري كل دواق با إلهي كرق دواق دبتنا وحو النبي بلابي صلوات الله وسلامه عليه دضردن إنو ياره واكي انتو صفكري ياري وصباحاه يري مركي اللي سودا يمي كو يري هدانا يدن دهدو بورتن دبديد عول إذن ويرر يا كسو صعدا مرو ميسان إيسان ها مركي كو يري هدين النبي وحو وحان دين كدقيا عذاب الله يو كليل بضن أيان دين كدقيا وأمرك أبي الله كلها طبا لك لهذا جمعتنا وأرجع ما وهوك كوسقنا ضاني مو حسد نوجي يريسي إلى هنا سودة شيء تبت يدا أبي لهب وطب وأنك كلي قريش كم ده قرآن كاللغو مقعابي مقعي سينو نار قليه حتى أبو جهل القرآن كما مقعابي لكن قرآن نبي محمد أدير كيبو شاقين وجهنم قليه نبي محمد أدير كيبو أبي لهبه أي قرآنك شاقي ومقع كلي قرآنك كسو أروري باسمه انت الله شاقي الله تلمامي انه جهنم قليه نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه دادكيسي نبي قوحو بلابي مركا ان دادكو ويره داد بدنين اسلامان وهريرها قبائل سركة ترسن نبي قوحو دادك ويره توحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورددوا لا إله إلا الله دعوة الليبان الثاني ينوحي لها إن جعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب ورمى إلهي دي يردن بمد قريس كقدق وروا وحلا لي أبا وحنو شيغي يا نبي محمد بيلي إلهي دي يردن حبت قرى كسوق عضو وحلا لي أبا بيانا تاقناي وحاوقي يردي ورا آخرة دميسا آخرة رمي إينا آخرة دعوة عياري ينوحينا إنا إذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمبعوثون وهدي أنو لمنه أعيد نقنه يلفه أئنا لمبعوثون ما أنك أدبنا لوصون نولينا يا بيلا هاي وك إلهي وضربنا لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم
annagu tusaale noo yeelay baa ilaahay yidhi abuurkiisiina wuu ilaaba kii gaalka intuu nebiga u yimi lafa gaboobay intuu sidaa inoo burburiyey oo dabaysha raaciyey buu yidhi ma kuwaasaad leedahay maxamedow dib baa loo soo noolaynaya ilaahay baa wuxuu leeyahay annagu tusaale noo yeelaya abuurkiisiina isagu waa ilaabay baa ilaahay leeyahy waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi laftan marka horeba yaa abuuray qul man yuxyi alcidaama wahiya ramiim buu isagu yidhi qul yuxyiiha aladii ansha'aha awala mara baa ilaahay yidhi kii markii horeba abuuray adigoo lafaha uurka hooyada un iskamaad geline kii marka horeba lafaha kugu kaa dhigay ayaa marka dambena soo celinaya baa ilahay yidhi wahuwa bikulli khalqin caliim labadaa mas'alo quraysh waabay ka yaabisay tawxiidkana waa labada asalka u ah aliimaanu billahi walyowmi alaakhir qur-aanka makigaana haddaad aragta labadaa eray si aad u badan bay ugu soo noqonayaan ilaahay in la rumeeyo ilaahnimo loo rumeeyo iyo maalinta qiyaame axaadiista nebiga in badan baad ku aragtay man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir la leeyahy waa labada shay ee rukunka waa caqiidada islaamiga waxa kaloo dham iyagay ka dhabalmaan walidalik tawxiidkaasi iyo albacthu bacda almowt diintii quraysheed wuu ka hor yimi dabeetana nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dacwadiisii buu bilaabay dacwadaasi waa dacwo loogu talagalay in lagu abuuro ama lagu sameeyo dadkii ummadda muslimiinta hoggaamin lahaa walidaalika dadkaasi may noqonin dad meel raaxo iyo nimcale ku soo koray waxay ahaayeen dad dhib iyo mashkilad iyo ibtilaa tiro badan ilaahay soo mariyey ilaa iyo loo bisleeyey inay noqdaan dad dunida hoggaamin kara yacni hoggaamintu wax fudud maaha ummad in la hoggaamiyaa wax fudud maaha ummad ka kaalaya in dunida oo dhan hoggaankeeda aad isu dhigtaana wax fudud maaha nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi saxaabadiisii waxay ahaayeen dadkii uu u tababaray inay dunida dhammaanteed hoggaamiyaan abibakar leh ee cumar leh ee cuثmaan leh ee cali leh ee abu cubayda leh ee sacd ibnu abi waqaas leh ee raggaa leh casharat almubashiriinkii leh ee muhaajiriintii hore leh nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fitradii makiga ahayd markaa 13 sannadood ayuu nebigu maka joogay oo ilaahay dadka ugu yeedhayay 13kaas sannadood qurayshi way la dagaalamaysay nooc walbana way kula dagaalameen dagaal dacaayad iyo ceebayna oo dadkuba si aan u rumaysan markii hore waxay dhahaan war waa nin waalane ha la hadlina yaa ayuha alladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuun ilaahay baa ka jawaabaya wuxuu leeyay nuun walqalami wamaa yasturuun maa anta binicmati rabbika bimajnuun ma ilaahay nimcadiisa markay kugu soo degtaa waali ilaahay nimcadiisa laguma waashaba aan la tilmaamayay waxay tilmaamayeen waa beenaale waa sixiroole waqaala alkaafiruuna hada saaxirun kadaab waqaala aldaalimuuna in yatabicuuna ilaa rajulan masxuura waxay tilmaamayeen qur-aankani waa sheeke bereley uu soo aroorsa meelaha ka soo ururiyey oo dad u sheegeen waqaaluu asaatiiru alawaliina iktatabaha fahiya tumla calayhi bukrata waasiila waa beenihii dadkii hore iyo sheeka xariirtii hore oo habeen iyo maalinba loo sheego ilaahi subxaanaه wa tacaala waxa uu nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ay isku dayayeen nimankaa gaaleed inay in badan ka hor yimaadaan diintii nebigu uu la yimi waxaanay kala hor yimaadeen wax allaaliya wixii ay awoodaan oo ay diinta kala hor iman karaan cayle ceebayn leh been abuurad leh mar ay yidhaahdaan balla kaalay mucjisaad waa maxay nebigaagan iska lugaynaya maad beero dahaba iyo dhul dahaba iyo qasnado dahaba iyo beero waaweyn maad la timaadi mar ay isku dayaan mufaawada war bal aan heshiino wada hadal oo aadna soo yara dabac wadduu low tudhinuun fayudhinuun soo yara dabacnana aan kuu dabacne mar ay isku dayaan inay qur-aanka caayaan mar targhiib ay yidhaahdaan waxbaanu ku siinaynaa laaluush iyo lacag iyo boqor baanu kaa dhigaynaa hablaanu ku siinaynaa ninka ugu fiican quraysh baanu kaa dhigaynaa mar hanjabaad iyo goodi iyo waa ku dilaynaa iyo saxaabadoo la tumo oo la cadaadiyo oo la cidhiidhiyo yacni usluub kasta oo xaq lagaga hortegi karo quraysh way isticmaashay hadduu dacaayad yahay hadduu soo dhowayn tahay hadday tahdiid iyo goodi tahay hadday mufaawadaad iyo wada hadal tahay wax kastoo xaqa lagu joojin karo way isku dayeen
نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومجوجين إلهي كتاب كيسو مدتك ويانا حد بيقارسينيين أي حد كو قبطانا اسكو ضيانين باختيان أما استهزاق يدل كو كقارو يساقو كعبدا كو سجودسن إن نفقاله وركوشرتين تلصوق هذا الدوش لغا صاره حديث في صحيح مسلم كو سقناو ابن عباس ابن مسعود نو يراهضه waxaana darag bulay anigoo nabi maxamed ag taagan oo tamariya itaal aan haynina wax kaga dhiciyo oo dusha uu iska saaran yahay bulay qurayshina ku qosqoslayso anna joogo anna waxba qaban kari laay bulay nabiga ilaahayna inta uu dusha laga saaray lagu qosqoslayo oo qosqosalkii qayladii intay badatay nabiguna aanu sujuudiisi ka toosin warkii faatimo inan yaro gurigoodii joogto uu gaadhay oo faatimo ay soo carartay iyadoo habaartabayso oo caytabayso intay soo gaadhay ay nabiga uuskiyo wixii ka jiidayso oo ka maydhayso nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh yacni ibnu mascuud wuxuu sawiraya sidii looga xoog badnaa ee loo tumayey ee loo maagayey iyo xaalkiisu xadku gaadhay ibnu mascuud maalmihii hore uu yimi waa kii isku dayey dhallinyaronimada inuu ka faa'iideeyo maalintuu yimiba wuxuu yidhi waxoogaa markuu joogay quraysh baan rabaa intaan naadigeeda tago inaan qur-aanka maqashiiyo dabeetana waxoogaa qur-aana uu soo xifdiyey buu kacbada la yimi qurayshoo naadigeedii fadhido kacbada hareeraheeda fadhida ayuu qur-aan ku dul akhriyey intay qabteen bay tumeenoo garaaceen maalin dambu haddana yidhi waa ku celinaya markaasaa la yidhi war waxba ha ku celina aayar iska fadhi quraysh waxba ku yeeli maysin tane aayar fadhi baa lagu yidhi nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi markii dambe wuxuu leeyahy waxaydaan anaga anigoo nabiga dhinac taagan oo isna uusiya caloola dusha laga saarayo oonana waxba uu qaban kari laay buu leeyahay nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh nabigu markuu muddo isaga iyo saxaabadiisu saa ku sugnaayeen markii dambe waxaa lagu sameeyey cunaqabatayn dhaqaale waxaan maanta dunida aad ka maqlaysaan oo dhammi maaha taariikh cusub in la istacaayadeeyo in la yidhaaho mufaawadaad iyo wadahadal iyo heshiisayna dhex maro in laysu hanjabo la yidhaahdo waa idin laynaynaa in la isdulmiyo waxaasoo dhammi taariikhda nabiga haddaad akhrido waxa maanta jooga wax fudud bay kula noqonayaan in cunaqabatayn dhaqaale la isku soo rogo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo intii raacdayba waxa la yidhi cunaqabatayn dhaqaale waxna lagama iibin karo waxna lagama iibsan karo weliba iyaga waxa loogu daray dumarkana lagama guursan karo cunaqabatayntii ka mid ahay cunaqabatayntii dhaqaale lagu soo rogay dabeetana nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh iyo intii yareedee raacsanayd waa kuwii shacba abi aalib galay ee reer banu haashim baa laysla go'doomiyey ee muddo kadib shanta nin intay isu tageen ay xilfigaa heshiiskaa yidhaahdeen war waa heshiis baatilee dadkan aan ka qaadno cunaqabataynta yacni gaal ha la ahaado gaalada cunaqabatayntaay nebiga ku soo riday haddana qaar kaloo gaaladii ka mid ah ayuunbaa u arkay waxani bini aadamnimo xumo inay tahay dad bini aadam oo laleeyahy gaajaha lagu baktiyo ila alyowmna waa sidii uun inta kibirtaana waa dad hebel ha la cunaqabatayo ha la baktiyo lana waayi maayo qaar caqli ku jiro le war dadkan maxaa loo laynaya loo baktiinaya waayo caqliga bini aadamku waxyaaba bini aadamtinimada ka mid a cadaaladda nooc ka mid oo caqliga ku jirta sidaa awgeed nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi go'doomintii lagu sameeyeyna qaarun ka mida mushrikiintii baa buriyey oo ka jaray markii dhibtii muslimiinta ay ku badatayna waa kuwii xabashida u hijroobay haddana been baa faaftay quraysh oo dhammi way islaamto way soo noqdeen waxaa la arkay inaan qurayshiba islaamine xaalku inuu sidii laysu dilayo sidii yahay mar kale waa kuwii haddana hijrooday ardi alxabasha ku noqday dadka intii nebiga ku soo hadhay salawaatullaahi wasalaamu calayh dhibtii baa kusii adkaatay xidhiidhku nebigu ummadaha kale la samaynayey reer madiina nimana waa kii xidhiidhka la sameeyey kadibna laba gooroo isxigta waa kuwii kooxa ka islaamay baycadii koowaad ee alcaqaba aluula waa kii qolo la galay 12 nina baycadii ku xigtay 70 nin rag ka badan buu nebigu la galay 70 rag gaadhaya intaa kadib waa kii muscab ibnu cumayr loo diray magaaladii madiina diin badani gashay kadibna nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuu hijrooday markii uu muddo ummadaha lahaa waryaa idifaacaya yacni nebigu wuxuu soo bandhigay dadka fikrad ah yaa wax iga celinayo inaan ilaahay diintiisa sheege mararka qaarkood bay dhacdaa in gaal uu magangelyo siin karo
qof muslima muslimiintii horena gaal magangeliyadii way galeen waxaa ka mid ah Abi Bakr as-Siddiq iska tag buu yiri xadiiskii Bukhari soo sheegay oo Makka iskaga tag nin gaalo ibn Abi Daghna la yiraahdo oo qabiilka qaaro la yiraahdo sayidkeedii buu la kulmay ninkii baa wuxuu yiri war adoo kale ma baxee nin fiican oo dadka caawiya oo wax tara oo caynkana dadayda saad uga tagtaa Makka wuxuu yiri tolkay baa soo saaray ina cali buu yiri ma ku keena wuxuu war reer Makka Quraysh odayadeedii intuu kaanu yiri dhageysta Abi Bakr ana magangeliye siiyay Abi Bakr ninkii taabtay anigu ma nustileena waa nin magantaydii taabtay xadiiska Bukhari waxay ku yiraahdeen sharti baan ku magangeliyada waa siinayna laakiin hal sharti ha yeelo quraankan iyo waxaan u dumarka iyo carruurta naga akhrinaya ha dhaafo gurigiisa ha ku tukado wuxuu doonayaa ku akhriyo iyo kala soo bixi sidii buu magangeliyada ku qaatay Abi Bakr muddo markuu gurigii Quraysh kaga tukanayay ayaa Abi Bakr waxa la qurux badatay guriga finaagiisa hortiisa inuu meel yar ka dhisto masaajid yar oo ku tukado meel yar buu ka samaysto masaajida halkaas ku tukada nin buu ahaa markuu quraanka akhriyo oo him badan oo cabsi badan salaad buu galay waa ooya quraan badan buu akhriya dumarkii iyo caruurihii iyo reerihii jaarka ninkan banaanka ku tukanaya la isugu soo baxaa Quraysheeda waa la arkay waa la dhageystay Quraysh waxay yiraahdeen waa ka fidneeyay dumarkii iyo caruurtii ibn Abi Daghna baa war loo diro waxa la yidhi ninkii diid wixii aynu ku ballanay ee laba mid ha yeelo ama guriga ha ku noqdo ama adiga magangeliyadii ha ku celiyo daan iska celinay ibn Abi Daghna yima wuxuu yidhi Abi Bakr oo sidan debalkeenu ma ahayn ee wuxuu ahaa inaad gurigaaga ku tukatid ee laba mid yeel ama ii soo celi magangeliyadii wada Quraysh wakaasay iswaajaha ama magantaydii ahoo gurigaaga ku tuko Abi Bakr wuxuu yidhi magangeliyadaadii baan ku celiyay ilaahay baan magantiisa galayaa qaado magangeliyadaadana waxa kamid ah nabigu inuu Quraysh xajka marka la isku yimaado qabaa'ilka intuu yimaado baa oran jiray man ya'wini hatta uballigha risalaat rabbi wariya ihoynaya yaa imarti gelinaya yaa meel igeynaya oo wax iga celinayaan ilaahay diintiisa dadka gaarsiiyay aniga yaa xorriyada inaan dadka wax gaarsiiyay siinaya oo dhibta kale iga celinaya man yamna'uni yaa wax iga mancinaya muddo markuu nabigu sidaa ku waday salawaatullaahi wa salaamu calayh ee cidina isaga magangeliye siin weyday ayuu nabigu markii dambe ilaahay wuxuu ogolaaday subxaanahu wa tacaala inuu hijroodo waa kii soo hijrooday Makka Madiina ayuu yimi Madiina markuu yimina nabigu wuxuu bilaabay inuu dhiso dawladda islaamiga ahay wuxuu ka bilaabay masaajid inuu dhiso markuu masaajidii dhisay kadib wuxuu u jeestay maadaama dadka muslimiinta ay soo hijroodeen oo dhaqaale xumo jirto aanay waxba jirin inuu dadka muslimiinta xoog mid ah ka dhigo oo walaaleeyo ansaar iyo muhaajiriin buu laba iyo saddex u walaaleeyo isku daray si mushkiladda iqtisaadiga ana walaalnimada ay u xallisho quwwatu saacidna loo helo dadka muslimiinta in la walaaleeyo mid laga dhigo kadib buu nabigu wuxuu haddana dejiyay sida culimada taariikh soo aroorinayaan wasiiqatu taxaaluf warqadii heshiiska Madiina ee yahuudiya dadkii kale Madiina deganaa uu la galay oo ah sida Madiina loogu wada noolaanayo iyo sida loo wada deganaanayo dawladda islaamiga hadda bilatay sida uu dhisnaan doonto intaasi waa hijradii iyo wixii ka horeeyo kooban tobankii sanadood ee ugu dambeeyayna nabigu wuxuu galay salawaatullaahi wa salaamu calayhi 27 ghazwada waxa la yiraahdaa dagaalkii uu nabigu raacay ama dagaal ha dhacaamayo dhicin 27 ghazwo ayuu 10 sanadood nabigu u baxay 27 ka ghazwo oo u baxay 9 kamida baa dagaal ka dhacay waa Badr Uhud خندق قريضة مصطلق خيبر فتح مكة حنين يا طائف تضبون بانا ووينا أولا يقان تضبا غزوة ووين باكرة ومعروفة وقوة كان أولو خندق
oo lagu darabaan leeyahay Tabuk lix kuwan kamida iyo Tabuk ayaa loo yaqaanaa ghazwaadka sabcada ee kibaarta ugu waaweynaa waxay yiraahdaan laba goor oo kaliya malaa'ig dagaalka ka qayb gashay waa Badr iyo bay yiraahdaan iyo Hunayn ayay dagaalameen ka qayb gashay maaha ayay dagaalameen malaa'igtu marna waxay yiraahdaan way gariiriyeen oo halaag kale iyo baqdin bay ku rideen waa Khandaqa aw ghazwat al-Ahzab laba dagaal oo qura fatxi weyn dhacay oo xoolo badan la furtay waa Badr iyo Hunayn hal dagaal oo qura madaafiicdii waqtiga jiray uu nabigu ku dagaalamay oo Manjaniqa waa Hisaaru Taif hal dagaal oo kamida buu nabigu dhufaysay qotay waa Khandaqi ghazwat al-Ahzab umuman dagaaladiisa 720 kaasaas bay taariikhiyahanadu sheegaan waxa uu nabigu diray tira ku dhow siday taariikhiyahanadu sheegaan 38 sariyo sariyadu waa kooxda gaada ama koox mar dagaal gasha ama war keenta ama kooxun muhiimad dagaal loo diray 38 sariya ayaa kamida waqtigu waa iska dhamaaday waxa soo dhan markaynu soo duuduubno waxa ka asal ahaa diinta in la faafiyo faafinta diinta la faafinayo kelimada Ilaahay dadka la gaarsiinayo ayuu nabigu naf iyo nafisba u bixiyay taasana saxaabadiisa lagu laayo markastana u diray khatar baa jirtana nabigu uma joojin dacwada midalan haddaan laba sariyo sariyaadka kamida tilmaamo Raji' iyo Bi'r Mauna koox tabana buu nabigu diray tobankii waa la khiyaamay qabaa'il baa dagaal la galay oo khiyaamay dabeetana way isugu yeedheen oo waa la laayay toddoba kamida markii la dilay saddex bay yiraahdeen isdhiiba waxaanu idin siinaynaa magangeliyay saddexdii nin markay sireen isdhiiba bay xadhi ku bilaabeen ay ku xidhxidhaan mid kamida yiri waana khiyaamay siro hadana dagaalamay isna waa la dilay labadii kale ee soo hadhay Quraysh oo Badr lagu laayay ayaa la yiri yaa aabihi waarayo laga iibiyay iyagoo maxaabiis markii hore nabiga inta loo yimaad la yiri cid quraanna bartana siiyo 10 nin ee nabigu ku daray wasaas loo laayay iyadoo 10 la laayay hadana qolo kale u timay tiri diintii baanu rabnaa inaanu baranno ee cid kale nagu dar 7 nin oo kale nabigu ku daray 7 kii kalena qabaa'il baa u heshiiyay oo iyagana waa la walaayay Amr ibn Umayya baa ka baxsaday yani nabigu ma oranin salawaatullaahi wa salaamu alayhi markii hore tobanba la iga laayo nin daba diri maayo waa khatar dacwada ka muhiimsan khatarta waxa loo galay marka inay diintani faafto walidaalka baa iyadoo toban la dilay ayuu dacwada diray iyadoo 7 la dilay ayuu hadana diray 7 markii la dilay xanuunka ay nabiga ku reebtay bilbu gacmaa cirka u taagay salaad kasta uu galo Ilaahay baryay oo habaarayay racl yadakwaan iyo Usayya saddexdii qabiil ay isugu tagay bilbu nabigu salaadaha dhan qunuuday oo laha Ilaahay adaan kugu eegaya racl yadakwaan iyo Usayya Ilaahay rasuulkii bay caasiyeen waxay kaloo ghazwadaas tusaale u tahay nabigu qaybka wuxuu ka ogaa hadduu 10 diray oo laga laayo 7 kale hadana ma iska diri lahayn la soo laayo amaya duu qayb og yaragu bil Ilaahay u baryay iskama direen laakiin walaw kuntu a'lamu al-ghayba lastaktartu min al-khayr ba Ilaahay waxaad ku tiraahdaa uu qayb waxba kama ogi laakiin haddaan qaybka ogahay khayrkaan badsan lahayo sharba ima taabteen ba Ilaahay waxaynu ku soo koobaynaa waqtigeena uu dhan yahay nabi maxamed salawaatullaahi wa salaamu alayhi ilaahay baa doortay oo shakhsiyada la doortay buu ahaa waxaana loo doortay inuu waxyiga xambaaro dadka gaarsiiyo gaarsiintaasna wuxuu waday 23 sanadood 23 sanadood daraasadoodu waa diintii oo dhan oo camal ah waxa quraan iyo xadiis la sheego oo dhami 23 daasay soo degeen siiradu marka waxay tahay
قرآن يا حديث كستاء النبي يقول ماشي كيري يسدي له عمل قليل وقرآن يا حديث كنقمات كودي إذن آد بين مهم تقفك مسلم كي صدح يلا تكاسر نضاد إنه دراسيه صدح يلا تكاسر نضاد إنه رشي النبي كم ده إنه دراسيه آد بين مهم تي وصدح يلا تكاسر نضاد وحي السعود دقي وصدح يلا تكاسر نضاد الدين تن لدسي وصدح يلا تكاسر نضاد التاريخ لبني آدم كم بدلي إلى قيام الساعة صدح يلا تكاسر نضاد وحي النبي يقول لسبب بدلي هذه واحدة كلبات أنا ربا وحي تهي وصدح يلا تنسى نضاد اسكو حديرسن أو تلمام يقفك مسلم كاهي ماشو قبل أبي هلكو وحكو دميني دول بار ربا يقول أن دتك بقوة لا إله إلا الله تفلحون الدولة الإسلام الدسان دول بار ربا بين عشية وضحاها هباني مالين قدوه دين دين تسكوه دا تاكتو يضان الله دمان ونفيو بحين الله سهل قمين والله صوادين صدحية تبانكي سندود ونبي مكة جوغي صلوات الله وسلامه عليه دب أردن با كتمي لكن هو عام كوها طريق الدين تبرب كموعا صدح شيء أردن عبان دين كدقية حلقة مكي قواد مودو حلية ده هذا اللي قلت رسالتك الله استضعاف صدين بدنين حلقة وقت صدح ذا الشيء دعي وحكم ده ضدك بد دربي مدح كل فتان دبتنا وابي الشكية أنا وحده وروح إنه صعن ما يسوي أنا الوريرينية مبادئ ده حبارسين بوا كشكية مرك الله يسدب الله سلاية الله سعد الله أي مبدأ أباك الشكية دبتنا ويكدعان إلهي بن كبر يينا وأنا قام بدقين ضدك بد مرك يتكاتب يدقدقان ويده هذا أنت يلا فردينا ياون ورمدحين ويقول ردا شغلة دان وقول دعنا وحوالي بوسك هجاج الدوراني وأقول نبي وقولها ولكنكم قوم تستعجلون دول دق يباتي إذن قلض تنازلات كالسمايسة أما مبدأ أباك الشكدة أما يرى يركو تنازشه يقول دن دقته سدح ذاك وحود ميدنا مفعنا إما أن الشكدة ومبادئ دبوك الشكية وكتغه أما بعضها تنازل سو تنازل يمنع الله وقضعه إما إنه دقدقه ومدعم بسلان إنه اسكت ضيانه قوسته دربك مضحة كل نفطه كصدحات وحيد هذان ومسألة اليأس وعدم الأمل دول لوحة كدعة مبادئ ده ولي عقيدة ده إن يستحيين كما يلومن لكن هو ضعيفة وحسن هذا ده يسكسكونا برقي إلهي فرج كفر يضمرك يعررت هذا سكي العشو انت قال فرج كفر يعني يأس ما كل عائنا وحبا حقيقين كرين أمل كوايا رجد وايا مركو الرجو وايا حتى هداني عقيدة دي كبحنا اسكا هايسابو يسير هذا ونده كتاب كاغا يسونا وقبل خيرك انت تسكدقي كرتو اسكدقوا عمل كيبو كتاقا صدح ذا الشيء هو باطل شيء الرسمي جينا وحويا انتي إلهي قرآن كقولها فاستقم كما أمرت فاستقم نبي قوحوا لا شيبة يهود وأخواتها مرك عرّدي كويال وحي عرّيي النبي يقول هودية ولا لهد هودية ولا لهد محي شيء وفاستقم كما أمرت توصنوا سيدي الغفري وحبها وعوي عنه وقت جورنا ماضي تاريخ دي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إن ساعد يبرد لغش يغو ويكبر لارنتي لكن وحنا نقول دردار مياه إن آدوا الدراسيسان أول بقى الدراسيسان تاريخ الصحيح يا سنة كذا الله هو يعني خزع بلادك الشيكوين كحريرته لغو قرقرحيي اسكناف تاريخ الرسمي قابا قفلا كتاب يسنك صاررتي والله أعلم وبالله توفيق جزاه الله الخير الجزاء الأخ الشيخ مصطفى حاج إسماعيل محاضرة كان ليس سيرة كومنية النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إله سبحانه وتعالى الله كاوى المريو أنا قال إله سبحانه وتعالى الله نقدر وكوا سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه برتا ولا ليال أنت أسكجد الوقت وعريرية سؤاله دبان ولقني كسب سنة موضوعا marka waxaan dhihi ciilaan kale baa jira walaalaha maamulka ay soo gudbiyeen walaalaha meesha wada jooga oo Soomaali waxa la raacay inay wada fariistaan